Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magacaabay guddi ka kooban Golaha Wasiirada oo ka shaqeynaya aaska gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow oo ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada aaska qaran ahna Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ku hadlayay magaca Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa ugu horeyn tacsi u diray ehelka uu ka baxay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Gudoomiye Yariisow Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu amray in muddo 3 maalin ah calanka dalka hoos loo dhigo si baroor diiq iyo duco loogu sameeyo gudoomiyihii gobolka Banaadir marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Warbaahinta qaranka ayaa iyana laga joojiyay barnaamijyadii caadiga ahaa lagana bilaabay in lagu baahiyo Qur'aan, arrintaas oo baroor diiqda qayb ka ah. Guddiga qabanqaabada aaska qaran ayaa ka shaqeynaya aaska qaran ee loo sameynayo Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow oo isbitaal ku yaala Dooxa ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerarkii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. Maxamed Axmed Xasan Maxamed Yuulka TV-ga caalamiga Kalsan magaalada Muqdisho.